السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبن عيسى iyo xalaqadii toddobaad ee mucjisada qur'aanka aanu soo wadnay maanta waxaanu ka hadlaynaa mucjisada lambarka 19 ee qur'aanka ku timi lambarka 19 waa number special ah oo qur'aanka si gaar ah ugu jira oo meelo badan wax ka turjumaya haddii noqoto kelimadaha qur'aanka aayadaha qur'aanka xuruufta qur'aanka ku timi haddii noqoto wax kastaba isku xiriirka marka kala socda ummadii horena nambarka way isticmaali jireen waliba yuhuudu nambarka 19 laakiinse wuu ka lumay nambarkaasi mana garanayaan sida u isticmaalaan laakiin way ka warhayaan inuu nambar 19 jiri jiray suurat al-mudaththir waa suuradda ku soo aroortay nambarka 19 marka kaliya ee qur'aanka ku soo aroortay ilaahay yiri calayha 19 korkooda waxa ah 19 marka waxa ku xigta aayadda ugu dheer ee suurat al-mudaththir ku jirta waxaan ognahay suurat al-mudaththir in aayado wada gaagaaban tahay ya ayuha al-mudaththir qum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir waa aayado gaagaaban laakiin aayaddan calayha 19 ku xigta waa aayadda ugu dheer suuradda ku jirta wama jacalna asxaaba an-naari illa malaa'ikatan وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر آيات داسو waxay ka kooban tahay 7 kelimadood aayadda dheer waa 7 kelimadood 7 waa 3 meelood oo min 19 waa 3 meelood oo min 19 waan ognahayna 3 kelimadood baa ka horeysa oo calayha 19 aayadda wama يعلم جنود ربك إلا هو واتا وما يعلم جنود ربك إلا هو آيادا وما يعلم جنود ربك إلا هلك أنه كسو قري وسقال يطبان حرف جنود أما أسكرت إلهي ربك أسكرت ربك أسقى أمبا إلهي أمبا وما يعلم جنود ربك إلا هو و19 حرف waxaa jirta aayad kale dhexda kaga jirta maada araada allahu bihada mathala watan maada araada allahu bihada mathala ilaahay arintan tusaalaha kan nambarka 19 baa laga hadlaya ogaada waa 19 xaraf maada araada allahu bihada mathala ilaahay muxuu ula jeedaa arintan muxuu ula jeedaa و19 حرف وما يعلم جنود ربك إلا هو و19 حرف آيات سنة لأن نمبرك 19 بشرحيسا إن تذكر فتنوبيان إن أهل الكتاب إن أجيهين نمبرك يهود ولبا سجار نمبرك ويقينين وكلمي نمبرك 19 والنمبرك النبي سليمان استعمال الشري إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بل معجزتنا إلى إيجا نمبرك 19 سورة قرآنك كو سودكتي وسورة اقرأ أما سورة العلق سورة العلق وحكا كوبانتاي 19 آيادات 19 aayadood oo dhan ma soo wada degin mar kaliya ee waxa ugu soo horeeyay 19 kelmadood oo u horeysa
oo 5 aayadood ah waxaa soo degay iqra bismi rabbika alladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waa 19 kelimadood suuraduna iqra'na markaad xagga dambe laga soo tiriyo laga soo bilaabo qul acuudu birabbi innaas iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul wallaahu iyo tabbat yadaa abii lahab iyo idaa jaa waxay noqonaysaa suuradda 19aad bay gelaysaa yani 18 baa ka dambeeya iqra oo dhan waxay ka kooban tahay 76 kelimadood 76 kelimadood waa 4 jeer oo min 19 yani 19 bay u qaybsantaa waa 4 jeer oo 19 marka intaasoo jeer bay nambarka 19 suuradda iqra ama suuradda alcalaq ku soo noqnoqotaa subxaan allah bal haddaanu eegno 4 aayadood ee taxadiga ama challenge-ka qur-aanka ku soo aroortay suurat alisraa ilaahay wuxuu yidhi acuudu billahi min ashaytaani arajiim qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu calى an ya'tuu bimithli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira challenge تحدي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا waxaad tiraahdaa nebi maxamed waxaad ku tiraahdaa hadday isku yimaadaan insiga iyo jinnigu inay qur-aanka mid la mida keenaan ma keeni karayaane mid la mida hadday ay isku muuqdaanba ay kala qashaynayaan oo istaageerayaan walow kaana bacduhum libacdin dahiira halkan waxaan ku aragnaa 19 kelimadood baa ku soo aroortay waan tirinaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 kelimadood weeye waxaana ku soo aroortay 76 xaraf ama 76 xaraf xuruufta haddaad tirisay qaaf iyo laam iyo xamza iyo nuun iyo alif iyo jiim iyo taa iyo miim waa 76 xaraf waxa weeye waa 19 oo 4 jeera waa 4 jeer oo min 19 inta xuruuf oo ku soo aroortay carabigu wuxuu ka kooban yahay 28 xaraf alif ba ta tha sida aan u naqaano alif ba ta tha 28 xaraf waxa halkan aayadan waxa ku soo arooray 19 xaraf kaliya 19 xaraf markii xaraf kasta mid loo tiriyo yani qaaf uu soo arooray alif uu soo arooray ba way jirtaa ta ma arko aan ta'na way jirtaa waatan bimithli way ku jirtaa bimithlihi jiim waatan min jen iyo ijtamacat xa kuma jirto يعني waxaa soo arooray 19 xaraf bal arag halkan mucjisada ka socota xaraf nambarka 19aad iyo aayadda taxadiga قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحدي اللباط أو كتم سورة البقرة إلى وحيري وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين haddii aad shaki ka qabtaan waxaan addoonka iyaga u soo dejinay nebi maxamed
suurad keena la mid ah hal suuro baa laydinka rabaa. wadcu shuhadaa'akum min duuni illah, ilaahay ka sokow shuhadaadiina iyo markhaantiyaashiina iyo culamadiina iyo keena in kuntum saadiqiin. halkan waa imisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kelimadood baa lagu taxadiyey. taxadi kale weeye. suurat yunis waxaa ku timi taxadi kale. ilaahay wuxuu yidhi am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bisuuratin mithlih wadcuu man istatactum min duuni illaahi in kuntum saadiqiin. ma waxay leeyihiin ma waxay ku leeyihiin been baad sheegaysaa, qur-aanka waa iska samaysay, bal idinkuna mid sameeya, suurado la mida sameeya haddaad kari kartaan. haddaan anigu sameeyey maxamed ahaan, idinkuna sameeya minis haddaad run sheegaysaan. halkanu waa suurad yunis aayadda 8 iyo 30 waxay ka kooban tahay waa 2 jeer oo 19. suurad huud iyana taxadi kalaa ku timi am yaquuluuna iftaraah qul faatuu b10 suwarin milihi muftarayaatin wadcuu man istatactum min duuni illaahi in kuntum saadiqiin. ma waxay leeyihiin wuu allifay, wuu iska sameeyey qur'aankan, bal waxaad keentaan 10 suuradood oo la mid ah oo soo allifa idinkuna, una yeerta waxaad kari kartaan ilaahay ka sokow haddaad run sheegaysaan. halkan waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 halkan 19 kelimadood. waawga haddaan xisaabino cadf waa taa aayadihii taxadiga iyo nambarka 19aad. qur-aanku suurad walba waxay ku furantaa bisinka bismi illaahi raxmaani iraxiim. weliba suurat alfaatixa aayad ka mida weeye. bismi illaahi raxmaani iraxiim waa 19 xaraf weeye. waxaa jirta qur-aanka 2 suuradood si speciala ah. suurad aan lahayn bisin waa suurat atooba, bisin kuma furanto, iyo suurad 2 bisin leh, suurat annaml, mid ay ku furanto iyo mid dhexda kaga jirta. suuradda aan bisinka lahayn ilaa suuradda 2 bisin leh waa 19 suuradood. waa kuwa 1 2 3 4 waa kuwa waa 19 suuradood, tan aan bisinka lahayn iyo tan 2 bisin leh. qur-aanku wuxuu ka kooban yahay 114 suuradood. waa 6 meelood oo min 19 ah. waa 6 meelood oo 19 ah. 114ku allaahu nuuru الsamaawaati wاlأrض waa 6 xaraf. halkan habka loo qoray waa habka qur-aanka ugu qoran sbelinga, maaha carabiga sbeling, waa qur'aan sbeling ama higaayadda ee qur'aanka. ثuma ina calaynaa bayaanah baa la yidhi. waa aayadda 19aad ee suurat alqiyaama. ثuma ina calaynaa bayaanah. bal halkan bal cajaa'ibka eega. aayaddan ku tukanno mar kasta oo suurat alfaatixa ku timi waxaa weeye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. waa 19 xaraf. suuraddii u dambaysay ee qur'aanka soo degtay waa suurat annasr, amase idaa jaa'a nasrullaahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba.
suuraddaasa u dambeysay qur-aanka soo degtay suurad ka dambeysay ma jirin aayado ka dambeeyey way jireen oo ku soo arooray suurat albaqara iyo ali cimraan iyo atooba iyo baan filayaa aayado ka dambeeyey way jiraan laakiin suurad ka dambeysay ma jirin oo dhan suurat annasr haddaad eegtid kelmadaheeda tirisid waa 19 kelmadood waxaa aayadda u horeysaa waxay sheegaysaa idaa jaaa nasrullahi walfatxu hadduu nasarka ilaahay yimaado iyo alfatxa iyo furitaanka yani iyo guushu ay timaado waa 19 xaraf xurufta haddaad tirisid alif iyo daal iyo alif iyo jiim iyo alif iyo hamza iyo nuun iyo saad iyo ra haddaa xurufta tirisid waa 19 xaraf aayadda dhexda ku jirta fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu oo nebiga iyo muslimiinta lagu amrayo inay tasbiixda iyo xamdiga istakfurasiga inay naqaan ilaahay u shukriyaan waa 19 xaraf fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba fasabbix intaas amarkii yahay innahu kaana tawaaba waa amar waxa weeye waa abaalkii ilaahay uu muslimiinta siiyey inuu u toobad keeno laakiin muslimiinta waxaa la faray intaa keliya fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu baa la faray waa 19 xaraf weeye suurat albaqara aayadda u horeysa oo nambarkeedu 19 yahay waana 19ka qur-aanka u horeeya waa 19 kelimadood weeye aw kasayibin min alsamaa'i fiihi dulumaatun waracdun wabarqun yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min alsawaaciqi xadara almowt wallaahu muxiitun bilkaafiriin aayadda 13aadna waa 19 kelimadood waidaa qiila lahum aaminuu kama aamana annaas qaaluu anu'minu kama aamana asufahaa calaa inahum hum asufahaa walaakin laa yaclamuun waa 19 kelimadood ilaahay markuu aadan abuurayay malaa'ikadiisa buu wuxuu ku yidhi innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulka khaliifan ka yeelayaa khalqi baan ku abuuraya innii jaacilun fi lardi khaliifa waa 19 xaraf hadhowtana markii la abuuray aadan ba waxaa lagu yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha aadam waxaa la baray magacyada oo dhan waa 19 xaraf suurat albaqara aayadda istirjaaca ama oo la yidhahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa 19 xaraf suurat alraxmaan aayadda markasta soo noqnoqota oo ah fabiayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan waa 19 xaraf suurat alracd waa suuradda 13aad qur-aanka marka lasoo tiriyo alxamdu albaqara ali cimraan suuradda 13aad aayadda 13aad oo ka hadlaysa alracd suurat alracd waa 19 kelimadood suurat annaml qoraanshada حتى إذا آيات سيدة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قرآن شدوا مركي هذا الشيء وصقال يتمن كلمة دول. سورة العنكبوت إلهي مركو عنكبوت كور رمي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وسقال يتمن كلمة دول. سورة الفتح آيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا النبي محمد لوجو بشاري وسقال يتمن حرف نبي محمد البشارة كالوالسية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا انت سب بشارة بالنبي قبال السية وسقال يتمن كلمة دود. مسلمين تنوالوا بشارة للسية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ينوى سقالي يتمن كلمة دود. سورة القرآن كأضم بيسا مركة القرآن كلا ترتيبية وسورة
annaas ama qul acuudu birabbi annaas ilaahay wuxuu na faray 19 kelmadood inbuuna faray inaanu ka acuudu billaysano qul baa la yidhi dheh acuudu birabbi annaas maliki annaas ilaahi annaas min shari alwaswaas alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri annaas min aljinnati wannaas marka laga reebo qol oo amarkii ah waa 19 kelmadood halka haddaan u fiirsanno suurad taaha ilaahay aayadda 68 wuxuu ku yidhi qulnaa laa takhaf innaka anta alaclaa nebi muuse baa lala hadlayaa waxaa lagu yidhi ha biqin adaa u sarreeya 68 marka 19 aad ku dartid 19 aan wadnay waa 87 suuradda tartiibteedu yahay 87 waa suurat alaclaa ilaahay leeyahay sabbix isma rabbika alaclaa alaclaa halkana waxaa la yidhi innaka anta alaclaa waa 19 aayadood waxayna ku soo xidhantaa suxufi ibraahiima wa muusa kelmadda muusa baa u dambaysa halkana waxaa lala hadlayay muuse marka suuraddan tartiibteedu waa 87 aayaduhuna waa 19 halkana aayadda 8 marka 19kii ku dartid waa 87 suurat adduxaa iyo suurat al-inshiraax waa laba suuradood oo nebi maxamed gaar u ah oo khaas u ah oo lagu leeyahay halkan suurat adduxaa waxaa leeyahay wadduxaa walleyli idaa sajaa maa wadacaka rabbuka wamaa qala oo ilaahay adduxaa iyo leyl uu ku dhaaranayo inuu leeyahay kuma wadacin ama kaama tegin ilaahay kumana dayn walaalaakhiratu khayrun laka min aluulaa aakhirana kaaga khayr badan tan hore walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa ilaahayna wuu ku sin ila aad raalli noqotid alam yajidka yatiiman faaawaa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faaghnaa faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar waama binicmati rabbika faxadith waa 11 aayadood oo suurat adduxa nebi maxamed gaar loogu soo dejiyey suurat al-inshiraaxna waa sidoo kale nebi maxamed baa gaar loogu soo dejiyey waxaa la yidhi alam nashrax laka sadrak wawadacnaa canka wisrak alladii anqada dahrak warafacnaa laka dikrak faina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa faidaa faraqta fansab wailaa rabbika farqab waa 8 aayadood marka labadaas suuradood oo isku daba xiga nebi maxamed gaar u leeyahay midi waa 11 aayadood midna waa 8 aayadood labadu waa isku 19 aayadood 11 iyo 8 waa 19 cajaa'ibka kitaabka ilaahay bin ciise channel fadlan sii sheer garay like-na taabo subscribe ka qayb gal channelka iyo ogeysiiska bilka